hargeysa waxaan bartay haddaad dukaan furanayso siriyar baan ku siinayaa meherad alaab kasta oo hargeysa taala inta badan cid baa jirta originally keentay oo dibadda ka keentay laakiin waxaa jira bakhaaro badan ayaga raalli ahaadeen hadday dhegeysanayaan oo intermediaries ah oo meel dhexe jooga oo iyagu intay ka soo qaataan haddana dib u sii iibiya iyaguna mid bay ku fiican yihiin oo markaad xabad u baahan tahay ee dee jeeb yara tahay baad ka soo iibsanaysaa laakiin way ku fuulayaan oo qiimo yar bay ku dul saarayaan laakiin haddaad in yaroo awooda hayso meesha originalka markaad ka soo iibsato lacag yar baa kaa go-aysa so daasad yaroo kasta kartoon yaroo kasta caagad yaroo kasta lacag yar baa kaa go-aysa waxaan fahmay magaalada hargeysa shay kasta qofka keena tunkaygaasaan ku qaadi jiray alaabta anoo jaamacadda macallinka ah oo hay-ad ka shaqeeya baan iska xamaalan jiro anigoo kartoon caanaa sida oo waddada weyn ka tallaabaya marmar ardaydu ohan jireen macallin basaan ku idhahdaa wuu xamaalanayaa macallinku shaqadiisu wataa maaragta waxaan uga jeeday nin aan saaxiib nahay oo ganacsiga aada ugu dhex jira ila taliya wuxuu igu yidhi haddaad adigoo tay iyo suul xidhan oo shaar cad aad soo dhex gasho meherad oo tidhaahdo halkan oo tilmaamo bixisana businesska weligaa ma fahmaysid haddaad daqiiqda qaado oo aada bahalka oo na waxaad noqonaysaa top markaa waxaan xasuustaa maalin ka mida maalmihii meheradda labaad markaan aan furayay ayaa iyadoo weli la furin ayaan la kulmay iyada oo intuu gaarayna dul yimi islaamo xaafadeeda ah oo reer miyiya oo raashin iyo alaab doonaya ayuuna soo duldhigay inamadii ma garanayaan qiime alaabtii way cusubtay lama dhigin weli labadii nina joogay midi tow buu yidhi oo dukaan buu ku cararay midna wuu istaagay oo waxa la ku hadlu gara waayay anigu markaa waan la kulmay nasiib wanaag islaamihii baan fadhiisiiyey sharaab baan u shubay mid walba waxaan ka qoray waxay doonaysay dukaankii kale aan wacay qiimayaashii baan ka qorqoray arrintu waa xallin waxaa loo baahan yahay innovation iyo halabuur wuxuu soo noqday ninkii odaga ahaa cararay anigoo dhammaystay oo lacagtii ka guraya waxaan ku ihi maxaad u carartay wuxuu ihi qiimayaashan oo maxay doonayeen baan ku ihi marka hore soo inaad ogaato maha waxay doonayeen markii aanu alaabta raraynay baan ku ihi ay yidhahdeen kaariyaro ma haysano gaariguna waddada dhinaca kula taagan yahay waxaan ku ihi maxaa kaariyaro ku falaysaa anigu waxaan xidhanahay suud blue navia oo lacag badan layga siiyey oo muxuu baashii daqiiqdii baan iska jaray markaasaan ku tuuray nimankii waarkada waxaa ku ihi sooyada laga yimin maayo suudka haddaad xaragoonayso shaqo diyaar ma tihin mararka qaarkood bay ku kalifaysaa inaad maaragtay boorka galgalato so haddaad rabto inaad business ama si uun maaragtay adoo maaragtay shaar cad oo tayiga xidhano mararka qaarkood markaad soo shaqaysato eed soo maydhato eed soo nafisto xaragood laakiin mararka qaarkood baad u baahan tahay inaad xoogga maasho